barnaamijkeena xogaha daahsoon waxaynu ku soo qaadanaynaa sababta ay dowladda Jabuuti oo ah dowlad yar oo ku taala gobolka Geeska Afrika xubinna ka ah jaamacadda Carabtu ay u noqotay mid ay daneeyaan quwadaha waaweyn kana samaystaan saldhigga military. Jabuuti waxay ku taalaa dacalka galbeed ee marinka Bab el-Mandab oo ah marinka loo soo maro kanaalka Suez, waana dariiqa afraad ee ugu weyn ee dalalka reer Yurub ku xidha wadamada kulaalaya Badweynta Hindiya iyo Bariga Afrika. waxaana lagu qiyaasaa maraakiibta sanadkii ka gudubta marinka Bab el-Mandab ilaa 30,000 oo markab oo badankoodu yihiin kuwo waaweyn oo shidaalka qaada. howlgallada loogu yeero ka hortagga argagixisada iyo la dagaalanka budhcadbadeeda ayaa qayb weyn ka ahaa waxyaabaha ay dalal reer Yurub iyo saldhigyo military ugu yeesheen dalka Jabuuti, xilli uu shoonuhuna lagama maarmaan u arkay in maalgashigiisa qaaradda Afrika aanu ka maarmi karin cudud military oo ilaalisa. xilligan dalka Jabuuti waxa ku yaala saldhig oo waaweyn oo dhanka ciidamada shisheeyaha ah, waana dalka kaalinta koowaad kaga jira saldhigyada shisheeyaha ee hal wadan ku wada yaala. waana rikoor cusub oo ay Jabuuti dhigtay xilli ay wadamo kalena daneynayaan inay halkaas saldhigyo cusub ka samaystaan. dowladda Faransiiska oo hore u gumaysan jirtay Jabuuti ayaa safka hore u soo taagan dalalka halka ku leh saldhigyada military, waxaana saldhigga Faransiiska ee Jabuuti si joogto ah u degan gaas ka tirsan ciidamada Faransiiska ee laga ciidamayo dadka aan Faransiiska u dhalan, waana gaaska ciidan ee tiradoodu gaarayso 1350 askari ee calooshada u shaqaystayaasha. dowladda Mareykanka ayaa iyaduna saldhig military ka samaysatay Jabuuti dhamaadkii dagaalkii Khaliijka ka bacdi, waana saldhigga military ee ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay qaaradda Afrika, waana saldhigga ay ku sugan yihiin 4,000 oo askari oo Mareykan ah haatan lagu tala jiro in la ballaariyo. dowladda Talyaaniga ayaa sanadkii 2009 waxay Jabuuti ka samaysatay saldhig military, waana ciidanka ka qayb qaata howlgallada ciidan ee Atlanta ee ay wadamada reer Yurub kaga hortagaan waxa ay ugu yeedhaan budhcadbadeeda ka qowleysata biyo badeedka gobolka. militariga dowladda Japan ayaa ciidda Jabuuti cagahooda soo dhigay sanadkii 2011, waxaana haatan saldhigga Japan ee Jabuuti ku yaala ku sugan ciidan tiradiisu ku dhowdahay 200 oo askari, xilli ay Shiinuhuna halkaas soo degay sanadkii 2017 iyagoo ka samaystay saldhiggoodii ciidan ee ugu horreeyay ee dalka dibadiisa. jariirada Lobegro ee wadanka Faransiiska oo faala ka samaysatay joogitaanka saldhigyada military ee Jabuuti waxa ay bahaysay in Jabuuti xudun u noqotay shaqada basaasnimo ee caalamiga, iyadoo ay ku sugan yihiin sirdoonka dalalka waaweyn ee dhexdooda isbasaasaya. waxaana jariiradu magaalada Jabuuti dhinac dhigtay qaabkii ay ahaan jirtay magaalada Danja ee dalka Morocco sanadihii sodomeeyadii ee qarnigeena dhaafay. jariirada ayaa intaa ku dartay in dib uga bixitaankii heshiiskii Jabuuti hore ula gashay Imaaraadka ee ku saabsanaa dekadda Doorale ay furo u noqon karto suurtagalnimada in saldhigyada shisheeye ee Jabuuti ku sugan qaarkood ay saxadda ka qarsoomi karaan daqiiqad walba, iyadoo joogitaankiisa soo taraya ee Shiinuhu ku leeyahay Jabuutina ay khilaaf ka dhex abuuri karto dowladda Jabuuti iyo dalalka kale ee halkaa degan sida Faransiiska, Japan iyo Mareykanka laftiisa. arrinta kale ee jariiradu warwarka ka muujisay waa cabsida uu diktaatoorka madaxweynaha ka ah dalka Eritrea Isaias Afwerki oo ah wadan la jaara Jabuuti uu ka qabo saldhigyada shisheeyuhu ku leeyahay Jabuuti, kaas oo aan ku niyad samayn joogitaanka ciidamo siyaasad ahaan neceb inay joogaan albaabka gurigiisa.